gudaha magaalada Davos Switzerland madal ay isugu yimaadeen madaxyaweynta dunidu ayuu Trump ka Mareykan mar kale ku karbaashay oo uu ku fadeexadeeyay Soomaalida. I mean, we're taking people from Somalia, and Somalia is a failed, it's not a nation. Shirka Dhaqaalaha Aduunka looga arrinsanayo ee ay martigelisay Davos oo furay Trump gunaanadka khudbadda idil ee uu meesha ka jeediyay waxa uu ka dhigay oo ku soo khatimay khudbadiisa in uu adduunka u sheegay fadeexado iyo ceebaalo waaweyn oo ay ku jirto tuugnimo iyo xatooyo sidoo kale caqli yaraan iyo dawlad xumo burbur dal iyo akhlaaq darrooyin kale oo ay leeyihiin Soomaalidu. Trump daqiiqadii ugu dambeysay hadalkiisa uu ka sheekeynayay dadka culaysyada ku ah dhaqaalaha dalka Mareykanka ee curyaaminaya dalal dhowr ah iyo ummado dhowr ah oo soo qaaday waxa uu si weyn ugu taagsado ugu balbalaarsaday fadeexadaynta Soomaalida Mareykanka. But equally importantly, we're cracking down on more than $19 billion in fraud that was stolen by Somalian bandits. Can you believe that Somalia, they turned out to be higher IQ than we thought? I always say these are low IQ. Trump waxa uu madaxda adduunka ee shirkan Davos fadhiday u sheegay in ay Soomaalidu ku dhawaad $30 bilyan oo dollar ka dhaceen dalka Mareykanka oo ay curyaamiyeen dhaqaalihii Mareykanka kuna shubayaan dhaqaalihii Mareykanka u xadeen dalkooda dalamoodka ah aan se ahayn waa sida uu hadalka u dhigay ka ah cantarabaqashti lagu yaqaanay ee Trump sidaas oo kale waxa uu sheegay in dalkoodu uu culays ka haysto oo la ciirayo dadka Soomaalida ah. I mean, we're taking people from Somalia, and Somalia is a failed, it's not a nation, got no government, got no police, got no military, got no nothing. Soomaali ayaanu Soomaaliya ka soo qaadanay madad baadmoodi oo madal baadmoodi wax jira ma aha waa dal burbursan oo dawlad la'aan ah dal kharaab oo si ah iyo dad cawdad ah ayuu adduweynaha ugu sifeeyay Trump Soomaalida. Somalian bandits, can you believe that Somalia, they turned out to be higher IQ than we thought? Can you believe they actually madad caqli leh baadmoodi oo xisaabtamo oo garaadkoodu sareeyo war waa dad seero ah ayuu adduweynaha ugu sifeeyay Trump Soomaalidu in ay yihiin. Who they just reported is worth $30 million. You believe this? Ilan Omar talking about the Constitution provides me. She comes from a country that's not a country. sidaas oo kale waxa uu adduweynihii Davos Switzerland iyo shirkan dhaqaalaha adduunka World Economic Forum fadhiye u sheegay in uu khaati billa ka taagan yahay dalkiisu gabadh yar oo xildhibaanada oo leedahay Ilhaan Umar Soomaaliyadna ah taasoo dalka Mareykan ka timi uguna soo gabanaysa oo ku xagxaganaysa dawladnimada Mareykanka shaarka dastuurka dalkaas mar walbana ku andacoonaysa oo sheeganaysa in uu dastuurku wax badan u ogol yahay oo ay ku cadaadinayso ku rabshaysa dalka Mareykanka. Trump waa caadadiisa inuu sida golka fuulka ah u dulmaro Soomaalida madal kasta laakiin in badan loogama baranin kullayna waa iska fudeedkiisa inuu adduweynaha hortiisa sidan ugu fadeexadeeyo ummadda Soomaaliyeed oo ugu soo hadal qaado si gaar ahna gabadha xildhibaanada ah ee Ilhaan Umar. Arrinta u dhaxaysa Trump Mareykan iyo Soomaalidu waxay maraysaa caycay dhaaftay geeska qabo waayo Trump Mareykan intii uu gudaha dalkiisa ku caayay Soomaalidu ee uu ku aflagaadeeyay ku ijaafeynayay dawladnimaduna wax ka sheegay danbay ahaydee mar hadduu adduunkii ku dirayo war kale ayaa halka yaala. habeenkii xalay ahaa sidoo kale ugu dambeysay Trump isagoo oo dalkiisa ku sugan markii uu si weyn u fadeexadeeyay dawladnimada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed sidoo kalena oo kabaha la maray xildhibaanad Ilhaan Umar ilaa uu gaadhay heer uu yiraahdaba kuma sii noolaan karta dalkan Mareykanka ee hal lagu celiyo Soomaaliyadeedii qurunka ahayd iyo qashinka waxa ka qabatay haddii kale waa in ay jeel gasho oo ay ciqaab adag marto. Trump oo Ilhaan Umar ka hadlaya wuxuu yiri
I always hate to see this. Elon Omar waa nibcahay oo indhaha iga gubtay yartaa ilhaan cumar ah a backward. waxay ka timid dal aan waxba ka jirin dal burbursan oo si ah dal kharaab ah dal ka mid ah dalalka ugu liita adduunyada dal aan dalba la odhan karin dal aan dawlad lahayn dal aan lahayn nidaam iyo kala dambeyn dal dadkiisu isdilayaan oo dad rabshad iyo xumo u joog ah dad fadqalalaasa ah ayay ka timid oo kharaab ah oo sida halkaa iyadoo ka timiday ay dalkeena timid way timid haddana waxay rabtaa in dalkeena inoo tilmaanto oo dastuurka iyo waxaas ay ka hadasho dastuurkeena iyo sharcigeena iyo waxa ku halqabsato inagu dhaliisho ma sii joogi karta dalka Constitution says that I am entitled to this. I can't stand her. xildhibaan ilhaan cumar xalayto markii uu Trump hadalladaasi warbaahinta mariyay ma ay gaabsanin iyaduna dhankeeda way ka jawaabtay oo waxayba qortay liis dheer oo ah falaadkii Trump sanadkiisa koowaad oo xafiiska ku sugan yahay ay ku sheegtay inay yihiin dambiye uu galay oo uu ku jiro afduubkii madaxweynaha Venezuela duulaanka Iran sidoo kale ay ku jiraan howlgallada ciidamada ICE ay ku dhibaateynayaan dadka reer Minnesota iyo duulaanka uu ku yahay Greenland waxayna liistadan falaadka uu Donald Trump sameeyay sanadkan ugu magac dartay Trump's Golden Age ilhaan cumar waxaad moodaa inay isdhareejinayso oo ay la tartamayso oo ay la tirsanayso Trump meel ay tabaridhigtaba halkaas marka ay maraysana waxay sheekadu noqonaysaa ilhaan cumar iyo Trump midkii Rome baa reerka Mareykan la yiraahdo u hari doona Emptied their mental institutions into the United States. And despite that, we have the lowest crime numbers that we've ever had in the history of the country. Just came out. But equally importantly, we're cracking down on more than $19 billion in fraud that was stolen by Somalian bandits. Can you believe that Somalia, they turned out to be higher IQ than we thought. I always say these are low IQ people. How did they go into Minnesota and steal all that money? And we have, they're pirates, they're good pirates, right? But we shoot them out of the water just like we shoot the drug boats out. They're not pirating too many boats lately, do you notice? When they go out into those boats, they want to take over $1.5 billion tanker loaded up with oil. And they say, we're going to blow up your boat. They have powerful weapons. You hit the side of the boat, you blow the whole thing up. The insurance companies are petrified. So they say, just give them the boat. We'll give them money instead. And I don't do that. We blow them right the hell out of the water. We see them going out, we blow them out of the water. We don't have any pirates so much anymore. If we do, they won't be there long. We've cut down with the hitting of the boats that are loaded up with drugs, including submarines. Can you believe they actually buy small, they call mini subs, very fast. They're meant for drugs. We've knocked out 2 of them. The Democrats say they were fishing. You have ruined somebody's fishing weekend, I would say. A submarine is not a fishing boat. You don't fish. But we've knocked down drugs by water, the oceans, the sea, by 97.2%. Think of that. And I actually say, who the hell are the 3%? Because I would not want to be piloting one of those boats. We knocked them down, and now we're going to start on land. We're going to knock it all out. The land is the easy part. What we did on sea is incredible, and that's our great military. The situation in Minnesota reminds us that the West cannot mass import foreign cultures which have failed to ever build a successful society of their own. I mean, we're taking people from Somalia, and Somalia is a failed, it's not a nation. Got no government, got no police, got no military, got no nothing. And then we have this fake congressperson who they just reported is worth $30 million. You believe this? Ilhan Omar, talking about the Constitution that provides me. She comes from a country that's not a country, and she's telling us how to run America. Not going to get away with it much longer, let me tell you.